السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا عشر كنا تضبط dialogue 7 and waxaan dhiganayna boogii wada sheekeysiga ahay cashirka maanta qaadanayna waxa weeyaan waa wada sheekeysigii toddobaad ama dialogue 7 ama conversation 7 halkan waxaa wada sheekeysanaya laba gabdhood mid la yiraahdo Caasho mid kalena lagu magacaabo Maryan soo marka casharada sida ka muuqataba meelo waxaa jiro aan ka dhigay cagaar marka meelaha cagaarkan waxa weeyaan waa new words ama ereyada ee nooc cusub ama yani waxa weeyaan ereyada muhiimka aan doonayno inaan dhigano weeyaan marka ereyadan macnahooda waan sheegi doonaa insha Allah taala qaybta dambe waxay noo imaan doonaa su'aalo aan ku dhihi doono ereyadan halkan ku qoran ereyada macnahooda qor aan ku dhihi doonaa imaan doonaan marka insha Allah taala waxaan idinka rajaynayaa inaad si fiican u dhageystaan ereyada macnahooda oo hadhowtiin aad soo qori doontaan insha Allah okay marka Caasho hadalka bilowday waxay tiri sister walaashaydii you pretend waxaad iska yeelaysaa you pretend waxaad iska yeelaysaa ama aad iska dhigaysaa to be beautiful mid qurxan ama gabadh qurxan iska dhigaysaa but in fact laakiin dhab ahaantii you are not pretty adigu ma qurxanid okay sister walaashaydii you pretend to be beautiful waxaad iska yeelaysaa ama aad iska dhigaysaa qof qurxan but in fact laakiin dhab ahaantii you are not pretty adigu ma qurxanid okay marka waxaad dhigaysaa hadda pretend waxa macnaheedu waxa weeyaan waa iska yeelid way qof wuxuu ahaan iska dhigay ayaa la yiraahdaa fact waxa la lahaa dhab ama xaqiiqa la yiraahdaa okay marka pretty na waa qurux weeyaan marka pretty iyo beautiful isku macno way okay pretty iyo beautiful isku macno weeyaan Maryan waxay tiri sister walaashaydii if I am pretty anigu haddaan qurxan yahay or not ama mise aanan qurxanayn it doesn't waxay tiri sister walaashaydii if I am pretty anigu haddaan qurxan yahay or not ama mise aanan qurxanayn it does not concern you adiga kuma khusayso it does not concern you adiga kuma khusayso okay marka concern waxa weeyaan waa khusayn okay khusayn weeyaan so Caasha waxay tiri really dhab ahaantii sister walaashaydii you cannot change ma bedeli kartid really dhab ahaantii sister walaashaydii you cannot change ma bedeli kartid how Allah created you sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray you cannot change ma bedeli kartid how Allah created you sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray and adiga and sidoo kale you like adiga waxa jeceshahay Caasho you like waxa jeceshahay to use Diana inaan isticmaasho Diana waa kareenka yani gabdhaha marsadaan oo maleeya so and you like to use Diana adiga waxa jeceshahay inaan isticmaasho Diana and everybody qof walbana recognize you wuu ku aqoonsan yahay ama wuu ku yaqaan adiga that you are ugly inaad adigu foolxun tahay okay so marka created macnaheedu waxa weeyaan waa abuuristi weeyaan created waa abuuray waaye recognize waxa weeyaan waa aqoonsanaantii shay la aqoonsanayo weeyaan ugly waa foolxumo okay ugly foolxumo weeyaan marka macnaheedna hadhow inta laga doonaya Maryan waxay tiri and please fadlan don't jealous ha kama seerin from my pretty aniga quruxdeeda please fadlan don't jealous ha kama seerin jealous Allah meeshan okay don't jealous from my pretty fadlan quruxdeeda kama seerin and if you want adiga hadda doonaysid to get pretty inaad qurxanaatid like me aniga camal and if you want adiga hadda doonaysid to get pretty inaad qurxanaatid like me aniga camal beg you Allah ilaahayga bari oo ilaahayga tug so as to get pretty si aad u qurxanaatid marka jealous waxa weeyaan waa maseer okay jealous maseer weeyaan so begna waxa waa tuugisti beg wax la tuugayo waay okay Caasha marka waxay tiri marka I am not worrying anigu kama walwal qabi and I am not worrying anigu kama walwalsan ama kama walwal qabi about your pretty adiga quruxdaada
I am not worrying anigu kama walwalsan ama kama walwal qabi about your pretty adiga quruxdaada but laakiin I want you waan ku waaninaya adiga to stop inaad joojisid but laakiinse I want you adiga waan ku waaninaya to stop inaad joojisid whatever wax walbo ama shay kasta can change your color oo kalarkaaga bedeli kara but I want you balse adiga waxaan kaa waaninaya to stop inaad joojisid whatever shay walbo can change oo kaasoo bedeli kara your color adiga kalarkaaga okay marka warin waa walwal qabid ama walwal waaye so one waa waanidi okay kan waxaa dhahaysaa warin tan waa one okay whatever waxa weeyaan shay kasta laga wadaa wax walba laga wadaa whatever shay walbo okay Maryam waxay tiri markaa I think anigu waxay ila tahay that you don't want adigu inaadan doonaynin me aniga to clean myself inaan isnadiifiyo I think waxay ila tahay that you don't want me adigu inaad doonaynin aniga to clean myself inaan anigu isnadiifiyo inaadan doonaynin ay ila tahay and sidoo kale you know waad og tahay ma waad garanaysaa that cleanliness inay nadaafadu is half of faith inay nadaafadu tahay iimaanka barkiisa inay tahay waa og tahay and you know waad og tahay that cleanliness is half of faith inay tahay iimaanka halfkiisa ama iimaanka barkiisa so faith maxaa la yidhahdaa waa iimaan faith iimaan weeyaan marka ereydan aan soo sheegnay macnahooda aan dul istaagnay dhammaantood inaan qortaa laga doona halkan waxaa ku qoran exercise waa su'aalo yar oo lagu weydiinayo weeyaan so marka waxaa lagu yidhi write qor the meaning macnaha of the following words ereydan soo socda qor the meaning of the following words ereydan soo socda macnaha qor marka waa English qaybtan weeyaan af Soomaaligiina waa qaybtan kale marka kuwan ereydan halkan ku dhigan oo Englishka ah ayaa laga doonaa inaad qortid af Soomaali ahaan qaybtan kale tusaalahan saddexdan u horeysa hadaan as example hadaan idin qoro hadda tusaalahan pretend macnaheedu waxaa weeyaan af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa iska yeelyeelid okay iska yeelyeelid weeyaan so fact waxay noqonaysaa macnaheeda fact waxay noqonaysaa dhab ama xaqiiq okay dhab ama xaqiiq ayay noqonaysaa okay midda saddexaad pretty waxay noqonaysaa qurux beautiful element marka kuwan kale ayaa laga doonaa macnaheedu inaad meelahan banaan qortid concern macnaheedu horteeda qoraysaa midaan concern macnaha halkaas aad qoraysaa created macnaha halkaas inaad qorto laga doonayaa meesha banaan recognize macnaheedu meesha banaan aad ku qoraysaa recognize ugly macnaheedu halka meesha banaan aad ku qoraysaa jealous macnaheedu halkaas aad qoraysaa one whatever worrying faith ila beg marka kuwan oo dhan laga doonaya inaad soo qorto macnahooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.